السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سومالي وين لما أنتين وإذ السلامي حندوك سلامي سلامة إسلامك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومركلة يوتيوب كأبوان شولي فضلا هدي أنا نقول عصب تاي صاحب نقول عمامة سبسكرايب لايك شير كومنتي جوانو مهم وحسبابي برنامج كان في خصوص تفنكي غرينا كشاكينا وكومنتي أن أخريي أي سبب وأها waxaan idinkaga soo sheekeeyay 5 kooxood oo hoteelada waaweyn xafladaha waaweyn munaasabadaha gaarka ah ka tuma oo ay Soomaali weyn lahaan jirtay 5 kooxood oo Soomaali Jazz durdur iftin shareero iyo tandar 5taas kooxood waan idin soo sheegay arrimahoodii 9 kooxood ee dawliga ahaa ee dawladda diiwaan gashanaa ee dawladda u shaqeynayay ayaan bilownay waxaan niri 5 kooxood waxay ahaayeen 2 wasaaradeed hoos tagayeen 3na ururka dhalinyarada ururka shaqaalaha ururka dhaqdhaqaaqa iskaashatooyinka Soomaaliyeed 4na waxay ahaayeen kooxii ciidamada kooxdii halgan ee ciidanka guluudayaasha Soomaaliyeed heegan ciidanka booliiska Soomaaliyeed horseed ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed onkod ciidanka asluubta Soomaaliyeed 4tii ciidan ayaan ka bilownay sheekada oo waxaan ku hormarnay kooxdii halgan ee ciidanka gulwadayaasha Soomaaliyeed dadku ma soo wada xusi karo dadku ma soo wada qaadi karo magacyadooda laakiin qaar kamid ah baan xusaa hadda sidii halganaan bilaabay ficlan dad oo in la sheego mudnaa ayaanan sheegin taasoo ay ugu qasabtay timeka barnaamijka oo waqtigii ugu dheeraaday taasna raali gelin baan ka bixinayaa in aan dadka dhan aanan wada xusaynin oo aanan wada sheegin qaar kamida aan ka xusaayay sida Cabdiqaadir Cumar Macallin Jubba Macallin Yuusuf Cabdi Xaaji Yuusuf Aliyebi ay ugu qabsaday wuxuu yiri inaad odaga sheegtay ahayd waa sax waa fanaaniin culculus ay ahaayeen Ibraahim Cabdi Muumin Cabdiqaadir Cumar Macallin Jubba iyo Axmed Sali intaasba inaad sheegto Xaliim Cudweyn maxaa u sheegi weysay xataa waa la igu qabsaday anigu dadku waa wada aqaana balse in yaroo koobanaan ka sii xusaayay dadkii dhan ma wada tirinaynin barnaamijku wuxuu asaga dhan soconaa 12 daqiiqadood waayahay kooxdii halgan ee ciidanka gulwadayaasha Soomaaliyeed raali gelin baan ka bixinayaa wixii aan ka tagay ilaa dadkoo dhan waa barnaamijku ma wada qaado waayahay maanta waxaan rabaa inaan hadana qaar kamida ka xuso qaar kamida kooxdii onkod ee ciidanka asluubta Soomaaliyeed kooxdii onkod waxay ahayd koox cajiib ah xaqiiqdii koox cajiib ah ayay ahayd kooxdaas onkod waxa organista u ahaa Allah u naxariistay digir min la yiraahdo waxa organista u ahaa Ustaad Cali nin la yiraahdo kitaabka waxa uu tumaayay Maxamed Abuukar Angaazi waxa kaloo tumaayay Gaari Goober waxa kaloo tumaayay Jiim Sheekh Muumin saddexda odayba waa tumaayay beeska waxa uu tumi jiray Ali Charles nin la yiraahdo beeska uu tumi jiray waxa kaloo beeska la sii tumi jiray Siidow Qaasin nin la yiraahdo bateriga waxa tumaayay Allah u naxariisto macallinka carabkan ku adkaynaya macallin shamuuq bateriga uu tumi jiray dadka dhintay anigu ma jeclayn inaan sheego laakiin hadda taariikhda in la xuso ayaa soo gelisay magaca kooxdii uu ku xusan yahay ilaan uu ka tirsanaa macallinka bateristii koowaad ee kooxda onkod wuxuu ahaa shamuuq bateristii labaad ee kooxda onkod wuxuu ahaa Maxamed Cabdiraxmaan Maxamed Macaani nin la yiraahdo labadaas ninba waxba ka faa'iideystay barashadayda aniga daraamka aan tumaayay dadkii aan wax ka faa'iideystay ayay kamid ahaayeen labadaba in la isxaqira ma fiicna labadaba macallimiin bay ahaayeen macallin shamuuqa horto macaanina macallin shamuuqa wax baray anigana waa ka faa'iideystay macaani oo iiga horeeyay daraamka iyo macallin shamuuq iyo kooxdaba anna waxbaan ka sii faa'iideysto gacan yaraan u ahaa okay darwish min la dhijiri inuu dhintay inuu nool yahay ma aqaan saxophone-ka u tumi jiri
adiga dad badan ayaa isoo maray macallin muuse xataa wuu soo maray onkod dadkii wax u tumay liin dhanaan nin la yidhaaha xataa waxbuu u tumay khaliif saaxiibkay isagana digfeer nin la yidhaaha isagana fiyaatooyinka dadka tumay digfeer iyo khaliif liin dhanaan saaxiibkay gaarka ah iyo darwiish dadkii wax u tumay fiyaatooyinka ayay ka mid ahaayeen dadkii waagaas heesaaga haddii aan wax ka xuso heesaaga kooxda onkod allahu akbar dad waa dhintaniyo ama waa dhoofay waxa soo harayna waa iska jaabo shooli camal iyo labadoo karaamaysan waa dhinacyadeyda waa laga helaa laakiin waxaa iska jooga shooli oo kaloo miiran wax oo adiga fanka gadaalka soo gaaray gadaalka gaar oo gaariga dib dambe ka soo qabsaday sida shooli oo kale ayaa loo badan yahay dad waa dhintay ama waa dhoofay dadkii waxgalka ahaa oo fankan macnaha ku lahaa ama waa dhinteen ama waa dhoofeen waaya heesaaga kooxda muuse ismaaciil khaliilna ka mid ahaa ismaan jacayla ka mid ahaa maxamed axmed khoomaal aa ka mid ahaa kooxda onkod ragaa soo maray rag fanka ka muuqdo magac iyo maamuus ku leh ayaa kooxda onkod soo maray zahra miraa soo martay ilaahu kuu naxariisa xaliima joomaa soo martay warniyahow dadku hadda madaxa xataa kama wada xasuusto dad way soo mareen onkod dadaa soo maray suufi muumin muxiidiin dad gruub banaadiriga ka shaqaynayaa jiri oo onkod ahaa oon aad ula shaqeeyey suufi muumin muxiidiinaa ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa roobay xaaji xasan waxaa karaamaa ka mid ahayd waxaa ka mid ahaa maxaa la yidhaahaa cabdiqaadir shaxaari allah u naxariista asna wuu dhintay niyahow dad waa dhinteen allah u wada naxariisto dhammaantood intii muslin oo dhimatay allah u naxariisto onkod waxay ahayd koox cajiib badan koox aan fooda la gelin karin oo qaali ah war waddankan niyow kooxihii ka dhisnaa koox kastaba sideeday u qurux badneed koox kastaba sideeday qiimo iyo qaayo ku lahayd koox kastaba sideeday ku qurux badnayd dadkeedana markaad dib u xusuusatid mararka qaarkood caloosha ma celin kartid markaad soo xasuusato taariikhda fankii hore dadkii soo qoray inaan ka sheekeeyo ayaa igu qasbaaya maahane ma adkaysan karo xataa dadka qaar oo aan soo arkay aniga weliba waxaan ahaa gadaalka gaar anu dadkaasaan ku leebal ahay iyo dadkaasaan ku leen ahay iyo biidin leey kuwaasaan aniga waxaan ka ahay gadaalka ka qabsi kirishboy ama daba kafuul camal ayaan ka ahay dadka aniga oo leebelka xataa ma ahayn kooxda onkod waxaa ka mid ahaa dad qaali ah jiim sheekh muumin heesaha aad maqashaan inta ugu badan onkod ninkii sameeyey waaye laxamkooda laxamiista oo cajiiba uu ahaa jiim sheekh muumin ayaa sameeyey laxamada waxaa ka mid ahay laxamada muuse ismaaciil khaliille inuu wax ka sameeyo waxaa ka mid ahay maxamed axmed khoomaal inuu laxamada wax ka sameeyo war dad qiimo badan oo fankana ku qiimo badanaa soo maray kooxdii onkod ee ciidanka asluubta soomaaliyeed wax badanna aniga waa ka mid ahaa waa soo dhex istaagay oo waa ka soo hoos loo luftay macallin shamuuq iyo macallinkaygii kale maxamed cabdiraxmaan maxamed macaani aan ka hoos qaraaban jiray waa meelihii aan bracticska aan ku soo sameeyey ayay ka mid tahay kooxda onkod kooxihii soo maray oon ka soo dhex shaqeeyey ayay ku jirtaa kooxdii onkod waxay hoos tagtaa kooxdaas onkod ciidanka asluubta ilaa hadda waa dhisan tahay ilaa hadda way taagan tahay kooxdii onkod cabdijibaar nin la yidhaha ayaa ka mid ahaa dadkii fiyaatada wax ka tumaaya cabdijibaar maanta madaxda kooxda onkod uu ka mid yahay cabdijibaar dadkii aan ka soo hoos loo luftay uu ku jiraa dad koorneetuu tumi jiray macallinka cabdijibaar dadkii onkod oo ku dhex jiriyuu ahaa cabdijibaar hadda dadkaan ma ahayn dadka hadda yimidoo sida shooli oo kale gadaalka gaarka ah maaha cabdijibaar waa dadkii hore kooxdii onkod markaa waxay ku ahaayeen koox cajiib badan koox aad u qiimo badan koox aan la heli karin oo wakhtiga iyo
markaas soo xasuusatid si kala noqonaysid kooxda onkod waxay ahaayeen koox aad u qiimo badan markii shakhsiyaadkeeda la sheego caashaqa ma baran weli mana beeninaaye caashaqa ma baran weli mana beeninaaye aaway dadkii heesahaas qaaliga ah soomaali hadda way iska dhegaysatiin intuu asalkiisa ku yimid iyo intuu ku jiri jiray intuu kooxdee lahayd iyo leeshma weydiiye nin kale mid shooliyoo kale oo hadda leefanka soo galay oo iska xoogsanaya wuxuu ku leeyahay aniga iiton filalmayn maryan yaa iska leh horta heeska aad leedahay mabala ma ogaba ma yaqaanaba taariikhda fanka waxaa igu qasbay anoo horta aad inaan ka sheekeeyo rabo war waxaan intay ka yimideen yaa asalkooda lahaa xaggay ka yimideen anoo dadka inaan ka dhaadhiciyo rabo dhallinyaradan cusub maanta adoo kale ah oo baabuurka geestii dambe ka soo wada qabsaday fahamsii anoo isleh ayaa commentigiina aan ka akhriyeyba in la yidhi macallinow taariikhdii fankii hore iyo kooxihii hore iyo sidii la kala ahay nin khayr nin oo aad dhallinyarada u danaynaya ah ayaa commentigaas ayaa ka mid ahaa commentiyadii aan akhriyey sababtaasaana keentay anigana waaba u ciil qabayba inaan sheego oon ilaah war waxaan fankaani intuu ka yimid kooxdaani maxay ahayd kooxdaan xaggee ka tirsaneed maxay leedahay meeqa heesaa aad ka maqashay horta ma isweydiisay lama hubo halfooftay inay caawa soo hooyanay gaganganga inay caawa soo hooyanay lama hubo halfooftay inay caawa soo hooyanay maxamed axmed khoomaal waa mar kale wuxuu kaloo lahaa doqa waa noolyaha ilaahay caafimaad ha siiyo caafimaad khayr qaba ilaahay ha siiyo maxamed axmed khoomaal wuxuu ahaa dadkii onkod maamuuska ku lahaa inay maxay ahayd haddaad oridaydiyo ubadkayga quruxda leh eebbe igu deeqay oo da'aad u jebin layd ifka waanu jeceele aday fudude iga ahaw haddaad oridaydiyo ubadkayga quruxda leh eebbe igu deeqay oo da'aad u jebin layd ifka waanu jeceele aday fudude iga ahaw waxyaabaha oo onkad aan ku xasuusto waa soo sheegaa iyo waa idiin soo bandhigaa haddaan idhaah dee caawana ma ka baxayna meesha barnaamijyadana waa wax iska 10 daqiiqa iyo 12 daqiiqa waay taariikhda fanka xusuusta fankii hore maanta qaybtii kooxda onkod ciidanka asluubta Soomaaliyeed intii aan ka xasuustay waa intaas way ka guda ballaaran yihiin waliba intaas aan idiin sheegay waqtiga ay kulaalaya mooyaane intaas waa ka guda ballaaran yihiin wayna ka qiimo badan yihiin dadka marka waqtigaana ciriiriyay intaasaan ku soo joojin rabaahe fadlan youtube-ka abwaan shoole fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe-ka nagu camaamada maxamed qadaraa dhihi jiray nagu camaamada asxaabay nagu camaamada subscribe-ka like share commentiga waa muhiim sidaan oo kale waxaasaa qaldan waxaasaa saxa saan idin iskula soconno maanta qaybtii aan kaga hadlaynay youtube-ka abwaan shoole xusuusta taariikhda fankii hore qaybtii 13 bal maanta intaa haynoo joogto والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.